intii la socotay qaybihii hore aynu ka diyaarinay inqilaabkii fashilmay ee ka dhacay dalka Qatar sanadii 1996 waxaanu qaybtani maanta ku eegi doonaa wixii ka dambeeyay markii uu fashilmay inqilaabkaasi la qorsheeyay inuu dhaco sanadii 1996 ee ka qayb qaateen dawladaha ay kamid yihiin Bahrain, Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo sidii waxa noqday taariikhdu sida ay isku bedeshay iyo waxyaalihii soo cusboonaaday ee ku soo biiray gudaha dalalka khaliijka Carabta ee Qatarna ay kamid ka tahay kadib markii uu inqilaabkaasi fashilmay isla sanadaasi 1996 xubnihii ka qayb qaadanayay inqilaabka iyo fuliyaashii inqilaabkuba wixii dhuuman karayay waa ay dhunteen qaarkoodna waa ay ka baxeen dalka harka intii la xidhay iyadoo qaarkii lagu xukumay xukunna kala duwan balse safiirkii Mareykanka ee waqtigaasi Bakmiris waxa uu qabaa in sababta inqilaabku ay ahayd in la laayo xubnaha sarsare ee haysta xukunka dalka Qatar si xilka loogu soo celiyo Sheekh Khalifa oo waqtigaasi doon ugu jiray inuu mar labaad dib ugu soo noqdo xilkii laga qaaday dawladda Imaaraadka Carabtu waxa uu diyaarisay goobo ammaan ah oo ay degi karaan xubnihii ka qayb qaadanayay inqilaabkii fashilmay ee sanadkaasi si ay ula kulmaan Sheekh Khalifa bin Hamad oo ahaa doonaha sida doonka baan ugu jiray in la fuliyo hawshaasi dibna ugu soo noqdo xukunkii laga qaaday kadib markii isagoo u tagay dalka Faransiiska uu la wareegay xukunka ninka hadda haysta waa xilliga inqilaabku dhacay Imaaraadkuna waxa uu ka qaatay door aad u muhiim ah in ay arrintaasi suurta gasho balse markii ay fashilantay waxa uu siiyay baasaboorro iyo sidoo kale fiisooyin ay ku joogi karaan gudaha dalka Imaaraadka intii ka soo badbaaday gacanta ciidamada Qatar doolka laxaad kale oo Imaaraadku ka qaadanaya waxa ay keentay inuu Imaaraadku bixiyo lacag fara badan oo arintaasi lagu fulinayo sidoo kale Jabir al-Marri waxa uu sheegay inuu kamid ahaa xubnaha sarsare ee qaybinaya mushaaraadka ay bixinayaan dalka Imaaraadka Carabtu waxa sidoo kale la sheegay in Imaaraadka Carabtu bixinayay biilka ay ku noolaanayaan qoysaska laga xirxiray xubnaha sarsare ee ka qayb qaadanayay inqilaabkaasi ee jooga gudaha Qatar iyadoo loo soo marinayo bangiga kale sidoo kale arinta Imaaraadka ayaa ahayd door siyaasadeed iyagoo oo siiyay baasaboorro iyo fiisooyin rasmi ah oo ay ku degi karaan gudaha Imaaraadka sida muwaadiniin ka soo jeeda dalka Imaaraadka Carabta oo kale balse Sacuudiga dhankiisu ma u yareysan doorka uu ku leeyahay sidoo kale Bahrain qudheedu waxa mid kamid ah maskaxdii isku dabaridisay inqilaabka oo Hamid bin Jasim bin Hamad ay siiyeen baasaboor diblomaasiyadeed oo ku mari karo guud ahaan dalka khaliijka marka laga reebo dalka Qatar iyagoo sidoo kale shirar qarsoodi ah la yeesheen Sheekh Khalifa iyo xubnihii wehelinayay ay ku dirqiyeen in mar labaad lagu celiyo isla inqilaabkii fashilmay sanadii 1996 si uu mar kale uu suurto galo waxaana intaasi ku dareen in sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo iyagoo bixinaya wax kasta oo ay ku qaadato iyo kharashaad kasta oo loo baahdo oo lagu fulinayo hawshan inqilaab si ay xukunka ugu soo noqdo taabacsan gudaha ama dalalka khaliijka waa Sheekh Khalifa bin Hamad Sheekh Zayed oo ahaa hogaamiyaha Imaaraadka oo khadka telefoonka kula xiriiray Khalifa ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin wax kasta oo loo baahan yahay tasiilaadkana iyagu bixinayaan balse laga rabo kooxdani oo kaliya in ay fuliyaan inqilaabka mar labaad isla inta lagu jiro sanada 1996 inta aanu dhamaanin balse xal waxa uu isbedelay saadaashuna ay xumaatay markii Qatar ama xubnaha fulinaya inqilaabku ay adeegsadeen xubno ajaaniba oo kamid yahay shakhsi ay ku magacaabeen kaasi oo ka soo jeeda dalka Faransiiska looguna talagalay inuu hubkaasi kontrabaan u soo geliyo gudaha Qatar si loo fulin karo hawsha isku day ee inqilaab ee la fulinayo mar labaad kadib markii uu fashilmay kii horeeto waxaana intaasi xubnaha loogu daray inuu kontrabaanka soo gelinta uu ku fudud yahay isla mar ahaantaasina la soo gelin doono iyagoo oo sheegay in ay goobta joogeen calooshooda shaqaystayaal kamid ah calooshooda shaqaystayaashay ka soo qayb qaatay inta badan inqilaabyadii ka dhacay dalalka Afrika wixii ka horeeyay 1996
balse imaaraadka iyo baxrayn waxa ay qorsheeyeen qorshe kale oo ah in qatar laga fuliyo gudaheeda fawdo iyo khalkhal ammaanka lagu ridayo si ay u guulaysan karto isku day kasta oo inqilaab oo ay u suurto gasho in la fulin karo inqilaab kale. cali miic oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb qaata shirka goobtaasi ka dhacay oo uu hogaaminayay dhaxal sugaha hadda dalka baxrayn xamid bin ciise ayaa sheegay in ay u sheegeen in qatar ay ka fuliyaan fawdooyin ay ka mid yihiin qaraxyo, toogashooyin iyo waxyaalo la mid ah oo ay intaasi u raaciyeen intaasi ay fududayn karto isku day kasta oo inqilaab oo lagu gelayo gudaha qatar. waxaana la isku dayay qaraxyo iyo toogashooyin ka dhacay goobo kala duwan oo ka mid ah gudaha qatar gaar ahaan caasimadda Dawxa. waxaana ka mid ahaa sida ay sheegeen rasaas lagu furay goob batrool oo wajba la dhahdo oo ku taala gudaha Dawxa iyo sidoo kaleeto isku day qarax oo la qorsheeyay iyadoo loogu talagalay in la qarxiyo xarunta korontada siisa magaalada Dawxa ee caasimadda dalka qatar. sidoo kale waxaa hawsha ku jiray in lagu goobo batrool oo ku yaala duleedka magaalada Dawxa. waxaana ay sheegeen in laba nin oo ka mid ah xubnihii loogu talagalay inay hawshaasi fuliyaan ay isku dayeen iyagoo rasaas ku furay wasiirkii caafimaadka ee wakhtigaasi isla mar ahaantaasina goobta ka baxsaday iyagoo mid ka midii uu galay dalka baxrayn oo uu sii maray gudaha sacuudiga. balse arrinta la yaab kale ee hoosta ka xariiqeen ayaa ah in baxrayn markii dambe ay u dhiibtay isla gudidii ka hortagga inqilaabka ee dalka qatar ka dhisnayd. balse hogaamiyaha inqilaabka oo ah sheekh khaliifa waxa uu ka cadhooday rasaasta lagu furay wasiirka caafimaadka ee wakhtigaasi isla haddana wasiirka caafimaadka isagoo arrintaasi diiday una sheegay inuu dhowr jeer uga digay in la sameeyo arrimo khalkhalgelina oo ay ka mid tahay toogashooyin toosa oo lagula kaco madaxda reer qatar. balse arrinta yaab kale ayaa ahayd in sheekh khaliifa uu sheegay haddii uu xaal halkaa marayo inuu ka baxay isku dayga inqilaab oo aanu mar dambe fulin doonin. taasna waxa ay keentay in dowladihii gacanta siinayay ay ka mid ahaayeen Masar, Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka ay gaabiyaan xiriirkii ay la lahaayeen hogaamiyaha iyagoo in badan isku dayay inay ku qanciyaan balse uu ku adkaystay. waxaana ay taasi keentay hoos loo dhigo maalkii iyo tasiilaadkii la siinayay xubnaha fulinaya hawshani. arrinta kale la yaab kale ayaa ahayd in xubnaha fulinaya inqilaabku ay moodayeen gacansiinta iyo fududaynta ay dalalkani u fududeen inay tahay dar ilaahay iyo caawimo muslimeed, balse ay goor dambe ogaadeen inay ka dambeeyaan dana siyaasadeed iyo isberbertaag laga doonayo in hadhow dantooda lagaga fushado. waxaana ay sheegeen inay ka baxeen arrintaasi oo ay ka biyadiideen markii ay ogaadeen, balse ay ahayd goor ay xeedh iyo fandhaal kala dhaceen. laakiin taa beddelkeeda safiirka Maraykanku waxa uu ku anducoonayaa in wakhtigii hore loo sheegay in ninka xukunka qabsaday ee kala wareegay sheekh khaliifa uu khalkhal gelinaya ammaanka khaliijka, balse waxa uu sheegay inay goor dambe ogaadeen in ujeeddadu aanay ahayn ee ay tahay in laga soo horjeedo madax bannaanida qatar iyo inay qatar gaadhi karto go'aanadeeda masiiriga ah. waxaana uu intaasi ku daray inuu dal kastaa leeyahay taariikhdiisana aan la tirtiri karin. balse xaalintaa kuma joogsana markii uu sheekh khaliifa ku noqday dalalka Yurub ama qaaradda Yurub ee arrintaasi lagu kala kacay. waxaa xubnihii inqilaabka ka qayb qaadanayay ama bixinayay lacagaha ee dowladaha ahaa ay isku dayeen in qaab kale loo dhigo hawsha lana sameeyo jabhad ka duwan jabhadii hore, taasi oo mucaarad ku noqonaysa xukunka Dawxa ka jira. Fahd al-Maliki waxa uu sheegay in isaga iyo boqorka hadda Baxrayn boqor Ciise kulan dhexmaray uu ku sheegay in la qorsheeyo jabhad in la sameeyo oo dalka la khalkhalgeliyo lagana sameeyo qaraxyo iyo sidoo kale arrimo kala duwan kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaraxyo, toogashooyin iyo gubid goobaha batroolka. waxaana wafaadintaasi uu sheegay inay arrintaasi fudud tahay laakiin dhankooga looga baahan yahay kafaalaqaadka wixii looga baahan yahay arrintaasi. kulano dheeraada kadib waxaa la isla meeldhigay in Fahd al-Maliki uu sameeyo jabhad nooc kale ah kuwaas oo gudaha qatar ka fulinaya khalkhalgelin iyo cabsigelin si loo fuliyo hawl ay iyagu dan lahaayeen. waxaana Baxrayn ay bixisay lacag aad u tiro badan oo ku dhowaad 200 milyan oo riyaalka dalka Baxrayn si hawshaasi loo fuliyo.
Fahd al-Maalikina waxa uu noqday hogaamiyaha cusub ee jabhadaasi iyadoo dabada ka riixayo ciise oo ah boqorka hadda haysta dalka Baxrayn. kadib markii ay soo gaadheen lacagii uu codsaday Fahd al-Maaliki waxa uu diyaariyay qaabkii loogu talagalay inuu fuliyo hawsha isagoo amarka ka sugaya Xamed bin Ciise oo ah boqorka Baxrayn haysta. waxa uu Fahd intaasi ku daray ka hor intii aan la fulin arrintaasi wax yar ka hor Saalix al-Karmi oo ahaa ninkii fulinaya qaraxyada loogu talagalay in lagu gilgilo magaalada Dawxa inuu u sheegay inuu qaraxyada dhigayo meel ka durugsan goobaha xarkaha korontada ee magaalada Dawxa. kadib Fahd al-Maaliki waxa uu sheegay in qorshihiisu ahaa in qaraxyada lagu fuliyo qaab loo dhigayo goobta iyadoo 7 goobood la diyaariyay oo ka mid yihiin goobaha lagu bixiyo baasaboorka dalka Qatar, xarumo koronto, goobo shidaal iyo goobo kale. waxaana uu sidoo kale sheegay in jabhadda ay u bixiyeen jabhadda soo celinta xukunka sharciga ah iyagoo ka shaaciyay wakaaladda wararka ee Reuters oo khadka telefoonka kula xidhiidhay una sheegay in ay jirto jabhadaasi oo ay ka dambayso dhammaan howlaha khalkhalgelinta ee ka socda gudaha Qatar. waxa uu sidoo kale Fahd intaasi ku daray inay isticmaaleen magaca iyo sawirada Sheekh Khalifa oo waqtigaasi jooga gudaha qaaradda Yurub oo uu diray wakaaladda Reuters oo ay fududeeyeen boqortooyada Baxrayn. waxaana uu sheegay in wakaaladda uu sheegay in ay ka dambeeyeen arrimaha khalkhalgelinta iyo isku dayga qaraxyo ee ay dhigeen goobta ku taala magaalada Dawxa ee bixinta baasaboorada Qatar. kadib markii ay fashilmeen isku day kasta oo loo dhigay qarax, inqilaab iyo qaab kasta oo loo soo celin karayay xukunkii ay u ordayeen, waxa isbedelay xaalkii ama xiriirkii u dhaxeeyay dawladaha ka qayb qaadanaya arrintani iyo xubnihii fulinayay hawshani. waxaana ay arrintu yeelatay weji kaleeto oo ka duwan wejigii hore ama jihadii ay u socotay. bilowgii sanadii 1998 waxaa furmay bog cusub oo ah in ay Qatar xidhiidh la samayso dawladihii ka qayb qaadanayay hawshani iyaga oo ka dalbanaya inay u soo gacan geliyaan xubnaha ku sugan dalalkooga ee ka qayb qaadanaya fulinta hawshani iyo isku dayada lagu fulinayo hawshaasi. waxaana sidoo kale ay Qatar ku tirtirsadeen ama ay ugu hanjabtay haddii xubnahan ay soo dhiibi waayaan inay hayaan cadaymo ku filan oo ay horgeyn doonaan beesha caalamka, kuwaasoo ay ka mid yihiin muuqaallo, sawirro, qoraallo iyo codad la duubay intii ay socotay isku daygii inqilaab iyo qaraxyadii laga fulin rabay gudaha Qatar sanadihii 1996 ilaa 97. ugu dambeyntiina xaal wuxuu noqday in la soo dhiibo kadib markii ay arrintu noqotay in aan anagu dhiibo ama aad soo dhiibto. waxaana ka mid ah xubnihii la soo dhiibay Jaabir bin Xamed Jallaab oo ah mid ka mid ah maskaxdii ugu muhiimsaneyd ee fulinaysay hawshani oo ay soo dhiibtay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Jaabir oo isaga laftiisu ka warramaya ayaa sheegay in Sacuudigu uga yeedhan gudaha Imaaraadka Carabta iyagoo sheegay inay u hayaan qorshe cusub oo hawshani kaga howlgalayo kadib markii uu soo gaadhay magaalada Riyaad ay ku qabteen xubnaha sirdoonka ee Sacuudigu isla garoonka Riyaad ama madaarka diyaaradaha ee Riyaad iyadoo halkaasi lagu xidhay loona qaaday hotel ku yaala gudaha Riyaad. waxa uu sheegay in subaxnimadii dambe ninkeenu qaybihii hore ku soo aragnay ee Abul Haytham ama Suldaan al-Ajmi loo yaqaanay uu yimid una sheegay inuu sida waraan qurux badnayn oo ah in loo dhiibayo Dawxa oo ah dalkii uu ka soo jeeday ahna caasimadda Qatar ama loo gacan gelinayo xukuumadda Qatar waqtigani ka talisa. waxa uu sheegay inay ahayd arrin lagu qoslo balse aanay iyagu dareensanayn inay ahaayeen awr la raranayo oo marka ay garbabeelana wadooyinka lagu sii deynayo. sidoo kale Jaabir uu sheegay intii gudaha Sacuudiga ku xidhnaa lagu la kacay falal arxan darro ay ka mid yihiin garaacid iyo sidoo kale in si fool xun loola dhaqmay iyadoo ay caydu u dheerayd. waxaana uu sheegay markii uu soo galay xabsiga in lagu furay codad hore loo duubay oo ah qaylo iyo sawaxan, mikrafoonno iyo sidoo kale biro la isku garaacayo. kadib markii uu gudaha soo galayna loo soo geliyay 5 xubnood kuwaasoo loogu talagalay garaacidiisa. markii madaarka la keenayna uu sheegay in diyaaradda isagoo ka tiinadaysan la saaray ayna loo raaciyay isla mar ahaantaasna Sacuudigu uu sheegay inuu yahay khaain wadan khiyaameeyay dalkii uu ka soo jeeday. balse Fahd al-Maaliki dhankiisu kama uu liidan markii uu ogaaday in la dhiibay saaxiibkii Jaabir waxa uu dareemay cabsi xoogan isagoo uu tagay Sheekh Said oo hogaamiyaha Imaaraadka. waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay in la siiyo amaan oo aan la dhiibin sidii loo dhiibay saaxiibkii. balse Sheekh Said oo ku dheeldeelaya ayaa sheegay in aanay isaga iyo Fahd aanay ka dhaxaynin wax heshiisa oo uu dhamaaday dantii uu ka lahaa maadaama ay fulin waayeen isku daygii inqilaab iyo wixii ka dambeeyay. isla mar ahaantaasina ay arrintu noqotay
wiisha gowrac dibigu ha ku quustee. xaalkuna waxa uu noqday mid soo food saara jaabir fahad iyo kooxdiisa, isla mar ahaantaasna waxa ay qorsheeyeen qorshe cusub kadib markii ay ogaadeen in uu ku dheeldheelayo maxamed bin zaayid oo ay go'aansadeen in iyaga la dhiibo iyaga oo ka cabsi qaba in loo dhiibi doono sida ugu dhaqsaha badan leh. waxaanay qorsheeyeen in qaab qaraxyo ah iyo dhuumasho lagu galo gudaha Dowxa lana weeraro saldhigga dhexe ama jeelka weyn ee magaalada Dowxa si looga soo saaro asxaabtiisa ku xidhan oo ka mid yahay Jaabir. waxaana uu diray mid ka mid ah saaxiibadiisa oo soo indhaynaya kana soo dubay muuqaallo qaabka meesha loo geli karo si loogu fududeeyo hawsha. waxaana uu duubay muuqaal cusub oo ku khalkhalgelinaya xiriirka cusub ee ka bilaabmay Imaaraadka iyo Qatar, isagoo sheegay inay Abu Dhabi mas'uul ka tahay wax kasta oo dhaca, isla mar ahaantaasina uu u damaanad qaaday Sheekh Said iyagoo magacaabay in uu u fulinayo wax kasta oo ay uga baahan yihiin. fiidiyoyadaasi way ku baahiyeen caalamka. Imaaraadka qudhiisu waxa uu sheegay inay dhiibayaan Fahad iyo cid kasta oo la mid ah una dhiibayaan dalkoodii ay khiyaameeyeen ee ay khaayin waddanka ku noqdeen, isla mar ahaantaasina loo soo gudbin doono sida ugu dhaqsaha badan leh, sida uu sheegay xubin ka mid ah sirdoonka dalka Qatar. maalmo yar kadib markii uu hadalkaasi dhex maray Fahad al-Maliki iyo Sheekh Said, waxaa la dhiibay isla Fahad al-Maliki. waxaana Fahad al-Maliki isagoo ka sheekeynaya sheegay in lagu soo weeraray gurigiisa oo ku yaalay Imaaraadka waqtigaasi ku sugnaa isaga iyo xaaskiisa iyo gabadh yar oo u dhalay, kadibna la argagax geliyey. muddo kadib loo sheegay in la doondoonayo mid ka mid ah hogaamiyayaasha khaliijka khalkhalgeliyey, laakiin isaga goor dambe loo soo galay loona sheegay isagoo la kulmay Sheekh Said in aanay siyaasaddu weji lahayn, dantii laga lahaana ay dhammaatay. Fahad waxa uu isku dayay inuu ka baxo gudaha Imaaraadka, waxaana uu tegey isla dalka Sacuudiga isagoo si dhuumasho ah ku socda. Sacuudiga waa uu ka gudbay, waxaana uu gudbay dalka Yemen. xubin sirdoonka ka mid ah oo Qatar ugu joogay dalka Yemen iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Yemen oo la soo xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Qatar waxa uu sheegeen in uu joogo nin sharci darro ku soo galay dalka Yemen oo ah ninka la raadinayo Fahad al-Maliki. kadib markii la xaqiiqsaday waxaa la codsaday in la soo dhiibo. ugu dambeyntii dalka Yemen ayaa u soo dhiibay isla dalka Qatar iyadoo halkaasi lagu maxkamadeeyay. waxaa halkaasi ku soo xidhay mid ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa ama laba ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa dhaqdhaqaaqoodii, kuwaasi oo kala ahaa Fahad al-Maliki iyo Jaabir al-Mirri, balse qofka keliya ee hadhay ee ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan waa Xamed bin Jaasim bin Xamed, kaasi oo u baxsaday dalka Suuriya. ugu dambeyntiina la soo qabtay iyadoo ay Qatar adeegsatay diyaarada ay leedahay sharikad Sacuudigu leeyihiin oo la kireystay oo uu uga baxsaday Suuriya dalka Lubnaan caasimadiisa Beirut. kadibna Beirut laga soo qabtay madaar ku yaala isla caasimadda Beirut loona soo dhiibay diyaaradii ay wateen xubnaha ammaanka ee Qatar, kuwaasoo loogu talagalay inay gacanta ku soo dhigaan Xamed bin Jaasim. waxaa intaasi oo dhadhaani dhaceen bartamihii, bilowgii iyo dhammaadkii sannadii 1998. waxaana xubno ka mid ah lagu xukumay dil toogasho ah, halka qaarkoodna lagu xukumay xabsi daayin, laakiin laguma fulinin dhammaantood. bartamihii May sanadii 2010 boqorkii dhintay Cabdallah bin Cabdilcasiis waxa uu si toos ah uga dalbaday amiirka Qatar Xamed bin Khalifa al-Thani in la soo daayo lana cafiyo xubnaha Sacuudiyiinta ah ee ku xidhan gudaha Qatar. amiirka Qatar aqbalay cafiskaasi isagoo uu fuliyay 21 xubnood oo ka mid ah xubnihii fulinayay inqilaabku waxay haysteen baasaboorka Sacuudiga, waxaana ay raaceen diyaarad uu soo raacay mid ka mid ah hogaamiyayaasha dalka Sacuudiga oo dib ugu noqday isla Sacuudi Arabiya.
kadib markii ay soo gabagowday xubnihii la cafiyey intii la sii daayayna la sii daayay waxa uu xaalku noqday mid isbedelay kuwaasi oo dowladihii markii hore ka qayb qaatay hawshani ay ka mid ahaayeen Bahrayn, Imaaraadka, Masar iyo Sacuudigu ay saareen cunaqabatayn iyagoon ka qiyaas qaadanin wixii hore u dhacay iyo taariikhdii soo jireenka ahayd. Bark oo safiirkii waqtigaasi 1996 Mareykanka u fadhiyay Dooxa waxa uu sheegay inay Dooxa tahay kaliya ay ka faa'iidaystay isbedelka caalamka waxaana uu intaasi ku daray inuu caalamku isbedel badan yahay xaqiiqaduna aanay marnaba qarsoomin isagoo sheegay inay taariikhdu sugnaanin booga taariikhduna aanay xidhmin balse ay isbedelaan waxaana uu sheegay in dalalka cunaqabataynta saaray Qatar sanadii 2017 ay yihiin dalalkii markii hore ka qayb qaatay isku dayga inqilaab balse ku fashilmay. arrinkuna waxa uu noqday kuwii markii hore ku fashilmay inay xukun military ku qabsadaan dalka Qatar waxa ay hadda soo gudbiyeen xukun cusub oo in Qatar la saaro cunaqabatayn dhaqaale iyo sidoo kale mid dhaqdhaqaaq oo loo jaray dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed saaxiibtinimo jaarnimo dawladnimo iyo sidoo kale dhammaan xiriiradii ka dhaxeeyay sanadii 2017 bishii Juun dhexdeedii. ku adkaysiga uu ku adkaysanaya safiirka Mareykanku inay Qatar wax ka baratay wixii dhacay 1996 waxa ay Qatar dhabaha u xaaraysaa inay mar labaad ka gudubto cunaqabatayntii la saaray sanadii 2017 iyadoo aanay jirin in aan cidi soo celinaynin taariikhdii tagtay balse waxa adkaanaysa inuu qofku fahmo wixii ka dhacay Qatar iyo waxa hadda ka socda haddii aanu soo dhamaystiranin qaybaha taxanaha ayaanu ka diyaarinay daawade haddii aad doonayso inaad dib ula socoto iyadoo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa barta YouTube channelka ee Xadaari Channel. tan iyo intaanu isugu iman doono barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.